السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يلا سودو هذا waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena aan ku falanqeynayna arrimaha NATO, Finland, Sweden iyo xaaladda Ruushka. Waxaan u mahadcelinayaa walaalkay Axmed Xasan oo barnaamijka qaybtiisa labaad qaybtiisa koowaad igala qayb galay. haddana qaybta labaad goobjoog u ah iyo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa oo aalada fogaan araga barnaamijka uga qayb gali doona walaalkay Mubaarak Cabdiraxmaan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waddanka Sweden isaga iyo Axmed oo aad u falanqeeya xogogaalna ka ah arrimaha Nordic ayaa barnaamijka ila jooga. Axmed soo dhawow. aad iyo aad ma santahay sharmaake. Mubaarak adigana soo dhawow walaal barnaamijka ku soo dhawow aad baan noo maqlaysaa saarajeenayo. waxaan ku hormarayaa Axmed Xasan. Axmed xaaladda hadda socota xagee wax marayaan arrimaha ku biirista waddanka Finland ee NATO. بسم الله شرماك هورتا آدي أيان كايمة عليا يعني دور كوين برنامج كان كقاعدتي مسؤولية القاعدتي هذا الحالة وحي مريسا ماشي وفي عنيد وين الدقنتها رنتي وفيلان وحي قوان ستي إني كقيب أي كان نقطة نيتو بارلمان كينا مانتا أي أنسحيان وحي أنسحي بقول يسداد حلبان أي ديدي لحنا سداد ديدنا لح أيين حسبك فاسمستو وواحد السوق يبيع سبتو حسبك فاسمستو ولقيس وكسور تشري إن قيب لقى نقطة نيتو dhinacii sharciga waa la maray oo maanta ayaa waraaqdii dalabka la saxeexaya madaxweynuhu markuu saxeexana waxa qaadaya wasiirka arrimaha dibadda waxa la geenayaa Brussels oo ay ku taalo yani NATO xarunta NATO kabacdina waxa loo dhiibayaa yani mas'uulka NATO Suomen yani Finland NATO u qaabilsan kabacdina dalabka ay dhiibanayaan kabacdina waxa noqonaysaa in soddonka dawladood dadka u fadhiya inay fiiriyaan adoo process-ku socda aad baa u mahadsantahay Axmed Xasan xaqiiqatan waa akhbaar cusub oo haddana muhiim ah waxaan rabaa aan soo dhaweynayaa xildhibaan Mubaarak Cabdiraxmaan xildhibaane soo dhawow waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xagee wax marayaan hadda xaaladda Sweden arrintan ku biirista NATO ee Sweden doonaysa inay ku biirto NATO. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Bismillahir rahmaanir rahiim. markuu waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo fursadan aad siiseen Axmed iyo adiga sharmaaka inaan ka soo qayb qaato barnaamijkan oo aan faalayaal ka bixiyo saasheegtay magacayga Mubaarak Cabdiraxmaan Badaraada xildhibaan waxaan nahay baarlamaanka Sweden waqtigan oo waqti runtii adag oo waqti xasaasi ah ayaan mataqaanaa ka dhex shaqeynayaa baarlamaanka Sweden runtii niyo arrintan marka laga hadlayo NATO ma aha horta arrin cusub oo dooda NATO wax soo jireenayd oo intaan xisbiga memberka ahaa sanad walba marka leenahay shirarka kongareeska waa laga doodaa arrimaha saakas politik waxa loo yaqaan ama siyaasadda ku salaysan nabadda waddanka xaaladda waxa weeye axadii ayaa waxa dhacay shir xisbigaygu uu qabsaday guddigiisa sare shirkaas oo la isku raacay runtii in lagu biiro NATO isniintii shir degdegan oo lagu yeeray xildhibaanada baarlamaanka iyadoo markaa arrinta laga doodayo maantana wasiirka arrimaha dibadda uu saxeexay warqadii codsiga ahayd inay Sweden ku biirto NATO laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan arrinta ka hadlayay oo macnaynaysa saamaynta keentay arrintan waxa weeyaan talaabadu waxa weeyaan in Sweden ay ku biiri doonto NATO taas la isku raacsan yahay xisbiyada baarlamaanka fadhiya oo sidoo xisbiga fadhiya baarlamaanka lix xisbi waxay isku raacsan yihiin lagu biiro waana marka la eego tirada ay matalayaan waa 180 kor u dhaafayaan marka waxa weeyaan runtii wax aad la isku raacsan yahay Sweden xildhibaane waa mahadsantahay Axmed oo ku laabanaya Axmed Finland hadda waa baarlamaanka already waa arrintaas waa baasgareeyeen oo waa la isku raacay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo madaxda sare ee Ruushka iyo Finland ma wada hadleen kuwa Ruushka ma hadleen oo arrintan jawaab ma ka bixiyeen wax akhbaar ah sharmaaka horta intaan taa u gelin waxaan rabaa hal arrin kaliya oo aan markii hore aan ilaaway inaan ku daro ahayd inagu haddaynu Soomaali nahay ama 23,000 ee Finland degan دور وين أيها نجس سهرن إن أرمهن إن لقدنا كورينه قول أيه نوتها ولي وحن أمهد علينا يا وراكي سلطان ويسوق الأذيه
oo runtii dee waxay matalaysaa shacbiyadda Soomaaliyeed inaynu NATO aynu raacsannahay aragtidu way kala duwanaan kartaa laakiin waxa laga yaabaa yani guud ahaan marka laga fiiriyo hadhowna marka dee wadamada lala shaqeynayo Sweden iyo Finland way xoojinaysaa taas ayaan rabay inaan ku daro way wada hadleen oo kuwii labada madaxweyne Niinisto iyo Putin ay wada hadleen 14 bisha shir jaraa'idku markuu qabtay madaxweyne Niinisto iyo dawladda yani waxaan ka wada yani ra'iisul wasaaraha wadanka wasiirka difaaca iyo wasaaradda arrimaha dibadda shirka jaraa'idna wuxuu ahaatay qorshihii iyo in dadka loo soo bandhigo waxa la sameyn doono Putinna waxaan jeclahay maanta ayuu hadlay arintaana de waxay dhahdeen haday ku biiraan NATO Sweden iyo Finland annaga yani dhibaato naguma hayso waayahay وما سنتهي أحمد وحن كل أبناء حلبان مبارك حلبان مدحضة نودن كسويدن iyo ruushka ma wada hadleen oo arintan wali wax wada hadal ah oo qadka telefoonka ama kulama ma dhacay xiriirka ruushka anu sidii kale uma ogi oo laakiin xiriiryo kale way jiraan qaab mataqana qaab shaqaale laakiin maadaama dhibaato weyn uu yubka socdo hada cunaqabateen lagu hayo waddanka ruushka si toosana soo noqotay way cadaysatay inay Ukraine taageerayso hub baan u dirnay taageerooyin badan baan u dirnay waddanka Ukraine marka waxaan u maleynayaa kulli taas ka jawaabaysa xaaladda xiriirka Sweden iyo ruushka xaq u maraya maanta hadda already Finland waa ku biirtay NATO hadal hayn oo xaajirto oo been abuur ah oo bulshada lagu kicinayo leeyahay dagaal baa dhacay oo la qaxayaa kulli magaalada waa joogtaa arintaasna way sii xoogeysanaysaa marka maadaama hadda hawshi gabagaba ay ku sii sikhayso maxaa looga hortagi karaa isleedahay waddanka Finland شرمك horta waxaan maleynayaa barnaamijkii hore aynu tuugnay ay arintaas ku soo afjarmatay oo anagii dadka xoog dhab ah la wadaagnay oo markii hore dadku daabacahooda wateen oo badan baa jiray oo dad badan waa inagii nala soo xiriiraan oo de hooyooyin badan ay wulwalsanayeen san hore u sheegay baa aniga Axmed ahaan mas'uuliyad waxa iga saaran 3,000 ee Finland degan inaan xogta dhabta u aan la wareegno sidoo ogsoonahay de siyaasaddu waa local iyo national iyo de Nordic marka la tagay heerkeeda leedahay de marna European bay sii tagaysaa marna global bay tagaysaa marka arrimuhu way kala qaybsan yihiin tan aan ku talin lahaa waxa weeye in markasta warka dhabta ah lala wadaago dad muslimiin oo nahay yani runtuna wax wanaagsan weeye walwalkuna ma fiicna yani adduunkana yani koonkan ilaahay ayaa abuurtay meeshu ku dambeyn doonana inaga ma ogin laakiin de waxaan aaminsanahay ciyaarihii de MM-kiisadka loo yaqaano yaakikadu waa socdaan wax walwala ma jiraan waa laga yaabaa inay arrimaha dhaqaalaha wana saameynaysaa arrimaha dhaqaalaha waxaan ku laabanayaa xildhibaan Mubaarak Cabdiraxmaan xildhibaan waxaan ku weydiinayaa su'aasha ugu dambeysay sida hadda Axmed aad maqlaysayba waxa oo wadanka Finland ka jira hadalhayn badan oo warar been abuur ah Sweden adinka ma qabtaan wararkan been abuurka ah oo bulshada heer intee la ugu gaarsiisan yahay sidee looga hortagi karaa xildhibaan niyo marka dhibaatooyin soo kala dhacaan waxa jira warar badan oo been abuur ah oo faafa oo waliba marka qaar aad loo isticmaalo arrimaha social media meelo badan ay dadku kooda xiriiraan waxaas mar walba wax soo jeedeen weeyaan oo mataqaan xataa waan ogeyn xanuunka corona in waxyaabo badan ay faafiyeen sidoo la soo hortagi karaa weeyaan marka war la xogsanayo waa inuu helo war la isku hubo waxaana kula talin lahaa qof kasta markaa inuu eego warkan uu faafinayo ama uu ka soo warkan wax qarinayo inuu war dhab yahay waxa lagu weyn karaa marka in meel badan ay ka hadleen source la fiiriyo soosooyinkuna hada soosoo la hubo soosooyinka lagu waxa kamid ah de mataqana journalooyinka caalamiga ah iyo wararka caalamiga ah inay waxaan ka soo baxayaan hadii aan meelaha warku ka soo baxaynin wuxuu warkaas u badnaanayaa war aan saliyaraad lahayn waana muhiim waqtidan kale in aan la iska fiirso waayo khatar been ay waddanka ku tahay shakhsiyaadka ku tahay hadii waxyaabo been ah la faafiyo aad iyo aad u mahadsan yahay xildhibaan Mubaarak Cabdiraxmaan Axmed oo kugu soo laabanaya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo in hadii NATO ay ku biirtay Finland dhaqaalaha iyo xiriirka iyo nabadgelyada iyo arrimo badan baa laga yaabaa in saameyn ay ku yimaadaan marka arrimahaas bulshada ula tacaamuli doonaan bismillah horta
arrimo badan ayaa ka dhalan doona oo tan madaxweynuhu yiri the new era ayaa noo bilaaban doonta oo waxay noqon doontaa inaan xiriir cusub aan ruushka la yeelano qaabkii dhaqaalaha loo soo celin lahaa runtii mowduucyadaasina waa mowduucyo dhaadheer marka dhaqaalaha yani si diib ah loo galo waxaan rajeynayaa inaan bulshada la wadaagi doono xogta dhabta ah oo arrimaha ku saabsan iyadoo cilmiyeysan oo caqliyeysan marka waxaan leeyahay bulshada Finland farxad ku noolaada nabadgelyo ku noolaada amniina ku noolaada aad iyo aad loo mahadsantii waayahay Axmed waan ku mahadcelinayaa waqtigaaga qiimaha badan iyo sida aad bulshada mar waliba ugu taagan tahay inaad ka xaqabtirto wararka been abuurka ah iyo walwalka ay ka qabaan arintan NATO iyo Finland iyo Sweden iyo Russia waxaan rajayn doonaa kulay waan kula soo xiriiri doonaa oo hadii wax ay soo ziyaadaan arintan NATO si aan bulshada ugu sii gudbino sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa xildhibaan Mubaarak Cabdiraxmaan oo ka tirsan baarlamaanka waddanka Sweden oo waqtigiisa isagana inoo huray saaxiibayaal waxaan leenahay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo